السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا فاطمة ورسن شيخ محمد جنال كداون إنسانا وسيروق شيخ جنال. السلام عليكم بإذن الله هاي مرلبات يا مرسدحات با أصحابتي دي قروح بدني دي شرفت بدني إن هل كان إسقوة برنينو كوكولاني ما شاء الله تبارك الله ولي إيمينا سو قرير هانتي برنامجي أنكو بالله لها وأنا إذن سجاي إن شاء الله هرجينيا ندب ugu noqon doontaan kilibkii hore ee aan soo duubay oon ahayn haddana kilibkan horay usii qaadaan insha Allah biidnillaahi raxmaan maalintii hore waxaan idinku yiri barnaamijyadii hore aan soo celin lahaa mid alla midkaad ugu jeceshihiin ii sheega si aanu dib ugu soo noqono barnaamijyadii hore oo u bixi jiray inta ka bacdi waxaan rabaa run ahaantii maanta inaan ka hadlo nin raga khaniis ku tilmaamayo أنا هو وحيالها قاب كدرن إني رجع إسكو دهان خنيس وكلمة حن وكلمة أد وقاب درن ولي وقف كاسي أنا عند كاجسو كينين دتكي رياكشن ككاسو بحناية أما دتكي كسو قادني أما دتكي كهلي شخصي عن شيء ومحمد بسكوت قبل أي كلا تجين وبريهم بهذا الذي الهاي اللي ودي ياسين هاليي أبوانك أو ساقاتي مركو ساقاتي ويران سدح كليبان كداودان ملاينيا أو ساقاتي سدح كليب بوكا ساقاتي سدح دا كليب وعيتميا مركا وحنقروا ينين رقا ونين رقا كلها يو خنيس باتا ياسين قبل عقبت موسى عاين ياسين قبل عقبت وحبك موشيقين adiga wuu ku dhaleeceeyo nin rag ahaan buu ku dhaleeceeyo ku aflagadeeyay haduu ku aflagadeeyayba ilmahaaga yarka ah ma sha Allah adeer soo barbaar buu inta lahaa wax maana kama u sheegin laakiin adiga maxamed buskud ahaan ah waxa laga yaabaa ina colaad kale oo hoose u heesid waa garan waay yacna afxumada iyo waxyaalaha hadalka meesha ka dhacayo bal wax yar codka maxamed buskud soo dhageysana وقالكان عاو حربا وحبا إنا نريبا إنا نريبتا مرو هالقف سوشيال ميديا عد والبا أو كجرتو هذا مقال صدو أما دي وح قال دعو أما دي أرين أي ما توصيدو من دادا تاغن وكالي وحو والبا أنا برياكشن وابحي وبحكرا لكن خنيس كان عدو إذا الصبحي هالحبو شان حبو قادر شان توصة أيا كل عيسو وخنيس لقرونا ماشان سهل وحكرا مسوغة بقى أنا جاسو السوغة يعني أوكي أنت دنبوا أفهم ديارو ميهي لو كلمدود بربا ويران إلا سدح كلمدود إن كوسو كوبو هذا لك ويل كان محمد بسكوده هرتنين رجع انتاد ميل وصفرستين هذا خنيس كنت المانتو لقرونا وح سوماليدو وفي عنا معها عادة يدقن صوماليادنا معها سيدا أديقو إهل أولاده هاي داد أولاده هاي قرابة أولاده هاي بوهالييغانا أوليه هاي داد يا قرابة يا إهل يا رير يا داد كتحان انتبا oo ay dhibayso caydiiso sida adigu noo dhibaysay in adiga lagu xumeeyo ama xumaan laga sheego in gabadhaada iyo adigu wixiinan ahayn in la idinka sameeyo baraha bulshadan la dhax keeno dad badan oo ka soo horjeedo ka dagaalamay tan iyo TikTok anu kamid ah mana jeclayn in lagu soo qaato oo xumaan lagu soo qaato waan ka hadlaa anigu laakiin sababta naga hadlay waxay ahayd hooyadeed maalintii codkeeda keentay ba marka iyadu ooynaysa aan arkay iyaduna waxaan ku yiri hooyadayo ooyaysa horay loo keenay oo ninkaaga ad garab fadhida keenay maantana adiga lagu keenay oo ooynayo hanag abukar ag fadhiyo marka isu barbartuur nafsigii hooyada barta ku soo fariisiyay waxa xaqiiqda jirta waxa sax ah tan yaasiinka u soo noqonaya haliyatiisa u soo noqonaya nin raga intuu ku sheego khaniis haddana u dhaadhaco reerkiisii iyo gabadhiisii iyo xaaskiisii waa laga falxun yahay yaasiin macaya gabdhaha magacan haliyay wuxuu ugu baxayna taariikhdiisa way ku jirtaa YouTube-ka dib u raac nin gabdhaha caayo nin gabdhaha aflagaadeeya hadduu yahay mar hore ayaa la soo wada qabsan lahay wax laga sheegi lahaa laakiin waa nin gabdhaha walaalkooda waa gabdhaha hiilkoodii waa gabdhaha walaalkood waa nin mar walba gabdhaha sharaftooda jecel waa nin gabdhaha oohintooda nacab
ونين قبلها جعل إنه كرو قاضو وانجعلها نين كرجع قبلها كرو قاضو نين كرجع قبلها إسكهر مريانا وجعلها يدك إسكسر رئيسيو وحن نعبها نين كقبلها ليدو نين كقبل الليدا نعبه نين كقبل أن هنك أي لا ده أنا أقول عنه دمر بات هاي هذا إن دمر هاي ونوج هو اللي هي بيجادك لكن وحنا قالها إن إي أقولاتد إن عد يا عقل أديكو كادرة عد يا عقلي إن أديكو كادرة هاي ندي أقولاتد بان ربا ياسين هلي ونين أقول قبل الصوماليات أما هلا دلت أما هكا شيء أو الصومالي نمو مقع الصوماليات هاوي ماتي هلي واقفك كلية قبلها الصوماليات هيلوا أمام بون يستاهلا والله العظيم إن السنجا أهين ما أنت ياسين أهيل لكن حقيقة كشيء أنت كأركن كشيء أنت قبلها إسلاميات أنت لا سوقات الرياكشن لقى بحيو رياكشن قلدان بحيو ما هو قبرك بحيو أيضا قلدان أو قبض أن أركين إني قلدان تهي بالغا يابا ياسين وقرب استاغو قبض أو سيو قرب وحلقا يابا فلقيسي وحن يهلي لهن إني كوهشو والله الرحمن كوسو هديجيو ما أها نين كل يرد قبلها عيبتودا أما حمانتودا لكن نين رجع أيضا دي قطع سنة نقول كأركيون كامليني أنا نكو هايست لكن مركو كساقاتي دتك كلا كومجوبينه محيا سين هذا الذي يسيو كوجبي because runtuu taabtay wuxuu taabtay xaqiiqda meesha ahayd buu ka hadlay gabadhan shalay waxay ahayd maantana ay tahay buu ka hadlay gabadhan waxaad shalay ku haysay maantana ku haysay buu ka hadlay hadallo badan baa isoo gaarayo iyadu laftinkeeda afkeeda gabadhu ka leedahay ay leedahay uurkii hore markaa yeesho wuxuu yiri DNA aan ka qaado yaa la seexday gabadha meninaan adiga ahayn baa la seexday inta soo ceeb iyo cay kuuguma fildo maxad biskudow inta soo ceeb iyo cay kuuguma fillo nin gabadhaad la seexatad gogasha la wadaagtay haddaad dhahday DNA baan ka qaadaya ilmaha dhashay because ma hubo ma wadaantii ceelkii faangaala lagu tuuranayaa maxay ahayd cay soo ma aha taasi gabadhaad ku caynaysa uurkan labaad hadda leedahay hana abuukar meesheeday ka lahayd DNA waan ka qaadaya naagahaygii oo dhan waan ka soo wada qaad naagahaga ma lagu daba marayay maadaan gabdhaha waxba ka qaadayna gabdhaha waxba ka tarayn waa adiga hadda nin raga khaniis ku caynaye maxaa xaasaskaaga adigu markay uurka ku yeeshaan aad uga qaadaysa DNA-ka sababtu maxay tahay maxaa dhiigga hidda-sidaha aad u qaadanaysa maxaa inaad dhashay in kale cunugan u cadaynaysa sababtu maxay ahayd mii sheegi kartaa naagahaygo dhan baan ka soo wada qaaday kuwaan soo kala tagnay iyo kuwa hadda carruurta intaba waan ka qaaday dhiigga dhalmada inaan anigu cunuga dhalay in kale waan ka qaaday adna waan kaa qaadaya kad uurka hadda ku leedahay iyo kan hadda jooga intaba waan kaa qaadaya kalsooni naftaada haddaad ku qaado aad ku qabta naagahaad qabta maad caayi lahayn ilaa iyagaad caayisad u durxulaysaa dhilooyin baa tihiin weeye waa dhilooyin baa tihiinoo niman kale aad la seexateen weeye seeda oga shakaysaa naag adiga kaasoo hoostoostay inay nin kale adoo ay uurka nin kale u leeda nin rageeda qaniis ku tilmaamaysaa marka ood caayaysaa ma qurux bay kuna noqotay maxaan biskuda waxaa fiican akhlaaqda lagu joogo social mediaha inaad baratid inta badan waxaan kuu malayaa anigu wiil aad u afgaaban baan ku haystaa dadka inta badan kusoo dhago ka hadla miihi laakiin wax qaldan markaan arka inaan ka hadla aad baan u jecla markaad hadda nin raga aad qaniis ku tilmaamaysiinna bal adigu iyo xaasaskaaga aad soo kala tagteen DNA-ga aad ka qaadaysay carruurta caloosha ay ku wadaan iyo kuwa ay ku dhaleen sababtaad ugu qaadaysay sheeg adigu cadday sababtaa maxay ahayd ma naagahaadaad ka shakisay ma adigaan waxba ahayn oo nin raga ahayn ma lagu dhalayay maxaa qaldan maxaad gabdhaha ku cayday maxaase yaasiin haliyo ku caydo qaniis ku tiri adaba kelmadda afkaaga ka soo yeerto naagahaagina ka soo yeertay weliba gabadha hadda furtay ka soo yeertay afkeedii ninaan isagu kalsooni isku qabin inaad tahay maxaad dhiiggaas u qaadanaysaa intaasoo keliba adii jawaabtaada ku ah khaniisnimadana ninka ragga laguma tilmaamo adoo weliba nin raga ah naagaha dhilooyin naagaha isdhaho
laakiin ragga waxa way iskala khashaafaan iskala faanaan inay khaliis isku tilmaamaan ragga wallaahi aad iyo aad bay u foolxunta waxaan ku leeyahay marka halyeyga wuxuu yahay waa la og yahay waa nin raga gabdhahana garab istaago waa nin geesiya gabdhahana walaalkooda haddii aad soo qaadato ugu yaraan hal markuu iga soo qaata 5 buu marayaa baad tiri 6 baad maraysa adiguna oo waliba kaaga imaanayso gabar Soomaaliyeed kaaga imaanayso taa adigana ku xisaabtan waxay idinkaga tagayaa saxaabtayda salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wali iimayna soo qorin barnaamijkii aanu ku socon lahayn oo aan bilaabi lahaa insha Allah biidmillaahi raxmaan kilibkaana waan arkay inaan ka hadlana waan jeclaystay yasin haliyay waxaan leeyahay gool iyo gobonimo hore u